kulanti wanaagsan daawadayaal waxaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga laga furay iskuul lagu magacaabo Xamadiye oo ka kooban dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare. Iskuulka Xamadiye ayaa noqonaya midkii ugu horeysay ee noociisa ah oo ay bulshada Soomaaliyeed oo muddooyinkii dambe ku soo badanaysay dalka Turkiga ay ka hirgeliyaan halkan. waxyaabaha sida weyn loogu jeclaystay iskuulkan ayaa ah inuu yahay mid kulmiyey aqoonta maadiga ah iyo midda diiniga ah. waxaana maamulka iskuulku ay sheegeen in macallimiinta wax ka dhigaysa lagu soo xushay aqoontooda kuwaasi oo isugu jira macallimiin Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ah. ugu horreyn qaar ka mid ah macallimiinta dugsigan wax ka dhigaysa bal aynu baranno oo soo dhaweyno. Hi, assalamu alaikum. My name is Naeem Hassan. I'm from Somalia. Inshallah, I will be teaching science, social science, inshallah. My name is Yakub, and I'm from Ghana. I'll be here as a business studies teacher, if possible, English. Thank you. A warm greeting to you all. My name is Vincent. I'm from Zimbabwe. And I'll be teaching mathematics, physics, and the sciences. Thank you. Hi everyone, I'm Ilhan Tahli from Somali. I will be like KG teacher inshallah. Thank you. Hello, my name is Fahima. I'm from England and I'll be teaching English and Maths. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Sharifa. I'm from Kenya. I'll be teaching English. Hello everybody, my name is Umama and I'm from Algeria. I'll be teaching English. Thank you. munaasibadan oo ka qabsoontay hoolka shirarka ee dugsiga Xamadiye waxaa ka soo qayb galay waalidiinta ay caruurtooda dugsigan wax ku baran doonto. waxayna maamulka iyo macallimiinta kala duwan ee dugsigu la wadaageen qaabka uu iskuulka Xamadiye u shaqayn doono. bismillah dhammaan waalidiinta sharafta leh dhammaan ardayda qiimaha leh marka hore ku soo dhawaada iskuulkeena weyn wax badan waa soo sabrayseen wax badan waa na soo riixiseen oo la heleen goormee la bilaabaya physical classki goormee noqonayaan. alxamdulillah waxaan soo gaarnay meesha aan dhehleen maanta waxaan bilaabi karnaa ama aan xooggeena isku geyn karnaa energy-geena oo dhan inaan socodsiino programka aan rabnay oo ah waxbarashadii. facilitieski aan u baahnayn oo iskuulka u baahnaa dhammaantood haddayna boqolkiiba 90 iyo ka badan waa inoo diyaar. halkan waxaan ku haysanaa ilaa iyo 50 qodob oo ah ruleska iskuulka ku shaqeynayay. 50 qodob, these 50 points are not the static one, are not the only one we are working. We are keep updating, changing, promoting all the time. So these points can ma aha points aan ugu talagalnay ardayda inaan ku ciqaabno, waa points aan ugu talagalnay ardayda inaan ku horumarino. ma doonayno ardayga khalad ka sameeya in aan dhahno khaladkiis kaliya aan ku ciqaabno, waa inaan u sheegnaa aan barnaa si uga faa'iideysto. waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan arkay intaan iskuulkan jooga aan horeyna aan ogaa waxay yihiin waalidka jacaylka uu ilmaha u qabo wuxuu gaarsiin karaa mararka qaar in ardaydii la siinin fursad ay ku fikiraan inay ku hadlin. tusaale ahaan markii la doonayo ardayga inuu sameeyo A levelka when a student wanted to go A level, so we call it some interviews. Some parents, they like to their children to be the best, so they are pushing them. They are saying, please, why you cannot choose this one? A level is not about what the parent wants. Is what student can do better. That is the most important thing. So all education in general is like that. waxbarashada sideedaba waxa weeye ardaygu wuxuu ku fiican yahay inuu sameeyo ma aha ardaygu wuxuu doonayo. anigu waalidkay biology ila jeclaa wuxuu dhihi jiray qof dheeraatay biology ka noqo laakiin biology ma jecel diyaaradda intaan raacaya ku dhib qabaa. so haddii aan markaa baran lahaa ama qarash la gelin lahaa I'm very sure waxaan jeclay teaching macallin aan noqdo. for my life teaching aan ku shaqeynaa ama jaamacadaan ka dhigo Turkiga, Soomaaliya, Libya inta macallin aan ku shaqeynaa meel kastoo aan tago wuxuu ilaahay ii fududeeyay waxay macallinimada 2015 Turkiga ka bilaabay inaan macallin ka noqdo. so pilot kama heli lahayn. this is what I can do better. I know I can be a good teacher. So teacher and education is my favorite. So dhammaanteen ardayda waxaan ka rabno waxa weeye in ay noqdaan their best. What they can do is not what we want. Assalamu alaikum to all of you. My name's Mr. Brian Onyango Agwari. I am a Kenyan and I've worked in the education,
for quite some time. And when I got the call from our beloved Sheikh to come and actually deliver my services to this school, then I thought of it and said, because already I have some history with him in other institutions elsewhere where I was also managing. So he called me and said that we have a very big project in Ankara and we want to have a proper international school. And I saw it necessary and important that I joined the team at the beginning stages so that we give it the best direction that it can, as much as international schools are concerned. Sheikh Mohammed Idris, oo ka mid ah maamulka iskuulka Xamidiya International Schools, Mr. Brain, oo ah academic manager-ka, iyo mas'uulkii ugu horreeyay halka ka hadlayay Mr. Abdurrahman, oo isaguna ah maamulka ku-xigeenka qaybta maamulka iskuulka, iyo Maxamed Salaad, waalidiinta, macallimiinta, staafka, ardayda dhammaantiin. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waalidiin badan requirementskii looga baahnaa iyo shuruucdii looga baahnaa iskuulka way soo mareen, way isdiiwaan geliyeen. qaarkoodba waxay ka dhibiyeen wax yar oo documents ah, iyaguna waan ka sugaynaa insha Allah si ay u helaan maxay classmate placementkeedu ah official ah. waayo beritool waxaa bilaabmaya normal classkii, arday kasta wuxuu fariisanaya gradekiisii si taa loo dhammaystiro. ardaydii waalidiintii ay ku dhinaayeen warqadooda inay keenaan iskuulka ay ka tirsanaayeen, fadlan idinkuna si degdeg ugu soo gudbiya insha Allah tacaala. waxaan idin rajeynayaa sanad wanaagsan, mustaqbal wanaagsan, ilaahay carruurta Soomaaliyeed waxbarashada ku guuleeyo. annagana waxaan rajeynayaa insha Allah mas'uuliyadana lagu aaminay kuwii ka soo baxay inuu ilaahay naga dhigo, sababtoo hadda waalidkii ardaydiiba halkan wada jooga maanta. beritool waxa iskaga tegayaa ardaydii iyo macallimiintii. marka waa mas'uuliyad aad iyo aad u muhiim ah, aadna u culus. waxaan ku kalsoonahay insha Allah Xamidiya staafkiisa iyo macallimiintu inay ka soo bixi doonaan carruurta Soomaaliyeed, mustaqbalkooduna inuu noqdo mustaqbal guuleysa ayaan ilaahay uga baryay subxaanahu wa tacaala. aadna waad mahadsantihiin dhammaan waalidiinta sharafta badan iyo ardaydaba iyo maamulka iyo macallimiinta Xamidiya International Schools. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdulillah, waddo dheer aan soo qaadnay, maanta meel fiican baan joognaa. muddada halkan waxbarashada aan meeshan habeenteeda bilaabaynay, meel aan zero ka soo bilownay, maantana ay inoo macquul tahay inay inoo agabkii loo baahanaa waxbarasho inu ku socon lahayd aan haysanno bay inoo maraysaa. waxaan ka hadli doonaa qodobka ugu muhiimsan oo isaguna hadda aniga aan u xilsaaranahay. laba qodob aan u xilsaarnaa, midna waxay ahayd iskuulkan qalabeyntiisa iyo habeyntiisa, iyo inaan transportationka basaska iyo shirkadda basaska aan soo habayo. alxamdulillah, sidaa aragteen basaskii hadda waa inoo joogaanin oo maanta waa kuwa xaafadaha kusoo wada maray. hasooda hadda ahayn waa iska maalintii koowaad. hadda kadib laakiinse waxa aan rabaa basku markuu xaafada ka soo baxayo, intii isku xaafada isku waddo ah buu soo mari doonaa. intii isku leen ah inuu basku carruurta saa u soo maro si aanay u daahin, baskana ugu dhex caajisin. marka waalidiintan waxaan ka codsanaynaa inay waqtiga ilmaha waqtigiisa lagu diyaariyo. Sheekh Mohammed Idris oo ka mid ah maamulka iskuulka Xamidiya ayaa dhankiisa ka warbixiyey muhiimadda loo furay, wuxuuna tilmaamay inay doonayaan inuu soo saaro dugsigani arday mustaqbalka noqon karta hoggaanka ummadda oo dalkooda iyo dadkoodaba wax ku soo kordhiya waxna tara. ujeedada koowaad oo insha Allah tacaala iskuulkan waxa weeye sida walaalahay masaaxiibadayba ay tilmaameen inuu soo saaro ardayda mustaqbalka noqon karta hoggaanka ummadan insha Allah tacaala, iyo dad kaalin wanaagsan ka qaata diintooda iyo ummadooda iyo dadkooda inay wax ku soo kordhiyaan, waxna taraan, una adeegaan. marka hawl fudud ma aha dhismaha bani aadamku, waa hawsha ugu adag weeye. waxaana rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala
inuu nagu guuleeyo waxaa loo adeegsanayaa in sha allahu tacaala sida ugu wanaagsan ee aan awoodi karno tabartu gaarto oo ah xagga tayada macallimiinta iyo waxbarashada iyo qalabka iyo qaababka wax loo dhigayo intaba inay noqoto qaababka ugu fiican in sha allahu tacaala oo ardayga uu wax ku qaadan karo waxna ku fahmi karo ku garan karo ha noqoto xagga teknolojiga ha noqoto xagga gaarsiinta iyo gudbinta ha noqoto xagga dhismaha fikirkiisa iyo caqiidadiisa iyo aragtidiisa intaba iyo tarbiyadiisa inay noqoto mid diinteennana ku qotonta wixii wanaag ah oo cilmi adduun ahna uu qaato oo labadii sidaas diin iyo adduunyo labadaba ay isugu biirto in sha allahu tacaala waana sida aan jecelnahay inay ku shaqayso dhammaanteenna hawshaas maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda intaasoon bay u dhaxaysaa in aynu iska kaalmaysanno oo isu kaashanno sidii natiijadaas in sha allahu tacaala aynu u gaari lahayn waxaan dhihi karaa xaqiiqatan iskuulku wuxuu noqon doonaa laba iskuul oo isku dhafan weli dhismihii maadaama hadda bilowga dhinacan haykalka akademiga ah oo nidaamkan rasmiga ah ee iskuulka aynu qaadanay ee shahaadooyinkiisa British systemka Excelka iyo dhinaca xataa American systemka oo la rabo in lagu dhafo maadaama dadku meelo kala duwan ay ka imanayaan shahaadooyinka caruurtu hadhow ku geli karaan jaamacadaha iyo looga baahan yahay dhinacaas ayaa hadda isku aadintiisa iyo jaangoyntiisa macallimiintu aad uga sii hadlayeen waxaa noo raacsan in sha allahu tacaala inuu noqdo iskuul kaleeto oo ku dhafan oo dhinacii islaamiga ah oo maadooyinkeeda ay degsan yihiin macallimiintoodii qaar badan ay magacaaban yihiin oo soo socdaan in sha allahu tacaala ay kusoo biiri doonaan usbuucan iyo usbuuca dambeba in sha allah oo xagga caqiidada iyo xagga xadiiska qur-aanka kariimka ah xadiiska siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam taariikhda islaamka iyo fiqhiga axkaamta sharciga ah intaba ay uu ardaygii uu barto waayo haddii aanu diintiisa wax ka fahmayn dee wuxuu noqonayaa wax aan wax badan naftiisana tari karin ummad kalena tari karin in dhinacaasna waxay noqon doontaa sidaan hore u ballan qaadnayna akademiga iyo qaybaha waxbarashadana waan kala hadalnay wayna ku socotaa jadwalkuna saasuu noqon doonaa in sha allahu tacaala xisooyinka hore oo subaxii ah oo dhan markii jadwalku uu fariisto ama jadwalku uu fariisto waxay noqon doontaa subaxa hore oo dhan qaybaha tarbiyada islaamiga ah iyo qur-aanka ayay noqon doontaa xisadaha hore oo dhan kadibna xisadaha maadiga ah ayaa raaci doona rabnaa ardayga subaxda horeba marka maskaxdiisu ay cusub tahay fresh ka tahay inuu qur-aanka kariimka ah iyo tarbiyada islaamiga ah laga soo bilaabo KG-ga ilaa iyo iskuulka gradiga ugu dambeeya ee 12ka iyo secondary-ga inay wada qaadanayaan kalaasyadaas insha Allah taala oo iyagoo aqoon u leh diintooda at least inta ugu yar oo guud ahaaneed ay maaragtay ka soo baxaan insha Allah waxaan kale oo jiri doona insha Allah taala qorshaha noogu jira معهد كل فن إن شاء الله تعالى أو قارب قرآن كريم كهي علوم إسلامية وأردي ذا الكون عيني كنت تخصصان إن هلي كران جانس كدين عاسني وبرتان وقرآن دراسات إسلامية أصل كدوية وحنا إلهي ذنك كبرينا إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه فضي أنت إنه هرسن إلهي سبحانه وتعالى إنه وقولي عمل كاس إلهي سبحانه وتعالى عمل كان بركيه أيان إلهي سبحانه وتعالى كبرينا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا والدين تي المهضة يوحي الرجين يعني هيك سنيان ونيدو ذو كجرنا وعن إلهي كبرينا إنه إلهي الرميه
ilaahayna subxaana wa tacaala dhammaanteenba uu inoo fududeeyo arrintaa iyo guusha inaynu gaarno khayr baan insha allahu tacaala isu rajaynaynaa. ugu dambayntii qaar ka mida waalidiinta ay carruurtoodu halkan wax ku baran doonto ayaa ka hadlay waxa uu uga dhigan yahay iskuulkan xaamadiye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلا إلى عبد الرحمن ما شاء الله ما أنت وحنا 6 سنوات بلابمي سكول كي الحمدية انترناشونال سكول 6 سنوات نميه سنو قادنا يونيفورم كي يجلسي دي عروته وكلا جرنا ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وحنكر شيءنا إنه نقضي سكول ننفع أنك يا عروته يدا هبكي اللي جربي aanu rabnay inay Soomaaliya ku xidhnaan wadankoodii iyo cilmigoodii dhinac walba kii cilmigii dunyawigii iyo cilmigii diintaba ma sha Allah waan ku faraxsanahay waanan aad iyo aad baanu anagu u taageersan oo u ducaynaynaa inuu iskuul khayr qabo noo noqdo ma sha Allah waalidiinta yani intii aanu rabnay markii hore waxaan dhigan jirnay iskuul Ingiriisiya oo diintii ka maqan tahay laakiin hadda waxaan mid diintii iyo maxay tahay cilmigii cusba isku xidhay dunyawgii isku xidhan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. barnaamijkan gaarka oo aynu uga hadlaynay iskuulka xaamadiye oo ah midkii ugu horreeyay ee noociisa oo ay Soomaalidu ka furato magaalada Ankara waxaa idiin soo jeedinayay anigoo Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Daruusha tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.